waxaa tan iyo shalay degan xaaladda siyaasadeed ee magaalada Muqdisho kadib dadaalo dhexdhexaadin ah oo la isugu soo dhaweynayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa lagu soo waramayaa inay u taagan yihiin dejinta xiisadda siyaasadeed balse ilaa iyo hadda ma cadda natiijada ay ka gaareen dhexdhexaadinta ay wadaan. goordhow waxaa xarunta madaxtooyada qaranka si rasmi ah uga bilowday kulan u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble kaasoo looga hadlayo sidii xal looga gaari lahaa khilaafkaasi. khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble ayaa sii xoogaystay kadib markii uu madaxweynaha wareegto ku magacaabay taliyihii shaqo joojinta lagu sameeyay Fahad Yaasiin oo uu ka dhigay la taliyaha amniga qaranka. ra'iisul wasaaraha oo ka jawaabaya go'aanka madaxweynaha ayaa sheegay in tilaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu ay yihiin kuwa lagu carqaladeynayo in si dhammaystiran looga gungaaro kiiska Igraan Tahliil Faarax. hase yeeshee garabka kale oo madaxweynaha ayaa waxay ku doodayaan in ra'iisul wasaaraha laftigiisa uusan diyaar u ahayn in kiiskaasi si sax ah loo baaro oona diiday warbixintii uu soo waday taliyaha nabad sugidda haddana ah la taliyaha amniga ee madaxweynaha Fahad Yaasiin taas oo ra'iisul wasaaruhu ka hor dhacay sida ay ku eedeeyeen ay sheegeen inuusan raalli ka ahayn. waxaa hadalhayn xoogan ka dhalatay dhanka kaleeto go'aankii uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xilka uga qaaday wasiirka amniga gudaha jagadaas oo uu magacaabay siyaasi kale. ra'iisul wasaaruhu xasan xudume jimcaale oo xilkaas hayay ayaa waxaa lagu bedelay Abdullaahi Maxamed Nuur oo kamid ah saaxiibada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. balse madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay go'aanka uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku magacaabay wasiirka cusub. sidoo kalena xasan xudume ku adkeeyay inuu weli yahay wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya. khilaafkan ayaa waxa uu noqonayaa mid saacadba saacadda ka dambaysa cirka isku sii shareera inkastoo haatan uu degan yahay kulanka maantayna uu noqonayo kulankii u horeeyay tan iyo khilaafka kadib si kafool ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu iskaga hor yimaadaan. Mahad Bashir Cismaan Mahad Xilif raadiyaha iyo TV-ga soo yaal Cabdo.